ونزول ربي يا ربي يسوع دقيديسا تبارك وتعالى. ما مشبه بعد هالشيء عمره إلا وصف السرتية واحد ينزل ربنا ربي بأسود دقايا تفسير واحد أهل السنة وحكايات دون أنا وأنتاس إلى أسود دقايا نزول ربي تبارك وتعالى مركا لغضي وحكا هضيا رحمة إلهي سوي واسع وطهي سيد إلهي خلقه سوى سدويني سوى حارساني عيد الدم دافع تساعة لهاس إنه كفى دوني كفى إنه كفى دوني وكفى إنسان أدوميس إنه سدويني إلهي سوى قابل أيو رحمة الديار سوي وحا لغا هضيا رسولك عليه الصلاة والسلام أيا كاغي ربنا ربك سبحانه وتعالى سيد الرسول كويري عليه الصلاة والسلام ده هذا كان هلكا كو اكي إن ما أنت طائفة وقرقارته أتكتر سنتهي أما كوح أسكو فكر تهين آخر وحبا كوتري ميسو بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد ولا ليال إن شاء الله تعالى وحان ربا في هذا المجلس بإذن الله عز وجل إنان أغهد له لبا مقطع وليس الدري وحاوي ننك اللي يراهدو الشيخ عمر قرويني وأغهد لي صفاتك إلهي سبحانه وتعالى قار كمده لبدا مقطع مد كمده وحا مناسبة وها حديث النزول أو أخريي كدي من أوزدل تاغي مقطع لبادنا وحكو سابسنا حديث كهل يمين الله عز وجل صفة اليمين أيو مقطع لبادنا كسابسنا runtii markaan labada maqtac dhageystay waxaan munaasab u arkay inay aad muhiim u tahay in laga jawaabo hadallada ku jira labada maqtac iyo tanaaqudaadka faraha badan ee uu ku dhacay Sheekh Umar iyo runtii tamwiiha uu sameeynayo oo uu ku sameeynayo dadka talabatul cilmiga ah iyo dadka caamada ah oo laga yaabo inaysan wax badan kala sooci karin إن شاء الله تعالى مركا مجلس كان وحنوغا هادلي دونا لبدا مقطع وحيابها كجيره wax kamida waxaana cinwaan uga dhignay waqafaat ma'a kalaam الشيخ عمر في صفات رب عز وجل وقفات isdultaag doona إن شاء الله تعالى hadalka الشيخ عمر ee uu ka yiri sifaadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala qaar kamida taasoo markaa labada sifo uu ka hadlaya kaliya aan gaar ku ahayn laakiin sifaadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala dariiqada loo sugayo uu ka hadlay labada maqtac tanaaqud badan ku jira haba si kala badnaadaan oo maqtaca labaad ee uga hadlaya sifatul yamiin ayaa aad iyo aad tanaaqudkiisa iyo hadallada isburinaya ay ku badan tahay hadallada isbaraanbaraya ama iska hor imaanaya waxay u qaybsamaan laba qaybood qayb sheekh laftirkiisa hadallada uu leeyahay ayaa iska hor imaanaya qaybta labaadna waa hadallada al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala ama kalaamu Tirmidhi oo akhrinayo oo runtii aad moodid asiga iyo al-Imam Tirmidhi rahimahullahu ta'ala inay macrakaba u dhaxayso oo al-Imam Tirmidhi hadalka sidoo u leeyahay iyo wadaadku sidoo u fasirayo inay aad iyo aad u kala duwan yihiin labadaas qaybood ayay u qaybsamaan waqfada koowaad marka insha Allah ta'ala waxay noqon doontaa tanaaqudaadka labada maqtac ku jira inaan wax ka sheegno haduu Allah idmo alwaqfatu thaniya waxay noqonaysaa insha Allah ta'ala uga hadlaynaa manhaju ahli sunnati wal jamaa fi ithbat sifati rabbi azza wa jalla waqfada saddexaadna insha Allah ta'ala waxaan uga hadlaynaa salafka iyo ahlul hadithka sifaadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala ma fasiri jireen macnaha sifaadka sama garanayaan oo ma la yaqiin macnaha sifaadka Allah subhanahu wa ta'ala ay leeyihiin macaanida sifaadka Allah subhanahu wa ta'ala ay leeyihiin ma garanayeen culimadii salafka mase macnaha ma garanayeen lafdiga uun bay iska mari jireen sida Sheekh Umar warka u dhigayo waa waqfada saddexaad waqfada afraad insha Allah ta'ala waxaan uga hadli doonaa jahmiyada nimanka la yiraahdo iyo mu'tazilada oo jaanib ah iyo ashaacirada markii laga tago sifaadka kooban ee Ilaahay u sugayaan subhanahu wa ta'ala inta kale ma ku kala duwanaayeen qaabka sifaadka Ilaahay subhanahu wa ta'ala loola muaamaloonayo
taasoo hadalka sheekh cumar in badan ka muuqata inuu kala duwayo. jahmiyadana uu leeyahay way inkiraan gebi ahaanba nusuusta sifaadka. qolooyinkan kalena ashaaciraba yuusan dhihin, laakiin dabcan waa ayaga qolooyinku ishaarayo ahlu sunnaha uu yaqaane ayagana uu leeyahay ma aragtay sifaadka, adilada sifaadka way sugayaan, laakiin macnaheeda sidaan waaye bay leeyihiin. taana waxaan rabnaa inaan isdul taagno, ma jiraa farqi u dhexeeya labadaa qolo xagga anfidda ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkiisa la anfinayo ama la diidayo. waqfada u dambeysa ee shanaadna insha allahu tacala waxay noqon doontaa nasiixo guud oo ku wajahan sheekh cumar iyo waman naxaa naxwahu, cidda asiga la mid ah ama dariiqadiisa haysa. alwaqfatu اluulaa waa tanaaqudaadka ku jira labada maqطac ee sheekh cumar hadaahu llahu caza wajala hadaladiisa ku jirtay. tanaaqudka koowaad oo ku jira maqطaca gaar ahaan uga hadlaya sifatu nuzuul, wuxuu soo qaaday ama uu soo naqliyey aharkii uu wariyey alwaliid ibnu muslim ee uu ka sheegay can jamaacatin min asalaf sida awsaaci iyo malik, sufyaan thawri, leyth ibnu sacd wa jamaaca, aayadaha ku soo arooray sifaatka ilaahi subxaanahu wa tacaala inay dhihi jireen amiruuha kamaa jaa-ad, siday u timid umara. aharkaasuu isdul taagay amiruuha kamaa jaa-ad bilaa kayfiyatin, kayfiyad la-aan umara, siday ku timid ku mara. markaasuu wuxuu yidhi haddii lagu weydiiyey ilaahay subxaanahu wa tacaala soo degiddiisa xadiidka keliya akhri, amiruuha kamaa jaa-ad waa saas macnaheeda. haddii lagu weydiiyo sifatulyad xadiidka akhri, haddii lagu weydiiyo cayn xadiidka akhri, khalaas intaasay ku joogi jireen buu yidhi salafka. hadalkaasoo macnihiisu uu yahay inaysan salafka fasiri jirin nusuusta sifaatka, inaysan macnaheeda sheegi jirin, laakiin lafdigaas carabiga keliya ay akrinayeen kana soconayeen, sidaasuu ku sheegay. wuxuu kaluu soo naqliyey ahar uu leeyahay imaam la yiraahdo abu muxamed axmed ibn cabdillaahi almusani. warawa albayhaqi raximah llahu tacaala can abi muxamed axmed ibn cabdillaahi almusani. musanigan waxaa laga yaabaa bacdu طalabati اlcilmi inay u fahmaan alimaam اlmusani almacruuf saaxibu اlimaam الshaafici raximah اllahu tacaala wa tilmiidu, shiikhuna ma cadaynin inuusan kaas ahayn. marka musanigani ma aha musanigii alimaam shaafici saaxiibkii ahaa, ardaygiisana ahaa. ninkan waxaa la yidhaahdaa wadaadku uu hadal ka soo naqliyey abu muxamed axmed ibn cabdillaahi almusani. almusani saaxibu shaaficina waa abu ibraahim ismaaciil ibnu yaxya almusani. midka shiiqa uu warka ka soo guuriyey xilligiisu wuxuu ahaa bacda alquruuni almufadala, yacni wuxuu dhintay sanadku markuu ahaa 356 hijriya ayuu dhintay. ama alimaam almusani abu ibraahim ismaaciil ibn yaxya almusani wuxuu dhintay sanadku markuu ahaa 264. almusani saaxibu shaafici wuxuu ka mid ahaa min culamaai salaf. hadalka marka shiikhani uu soo guuriyey ama sheekh cumar uu soo guuriyey ma aha alimaam almusani ee ka mid ahaa min aimati salaf ee saaxibu shaafici hadalkiisa ma aha. kadib markuu hadalkaas soo naqliyey wuxuu yidhi asoo sii sharaxaya, macnuhu ma ahan buu yidhi markii la leeyahay allah subxaanaه wa tacaala yajiiu wayanzil, ma aha inuu dhaqaaqayo annahu yataxarag, ma aha sidaas buu yidhi. mana aha buu yidhi inuu imaanayo oo makaan ka soo tegayo oo meel kale imaanaya, ma aha. macnaheedu maaha ilaahay imanaya iyo ilaahay soo degaya, ilaahay baa soo dhaqaaqay dhaqdhaqaaq meel ka yimid, meeluu ka maqnaa ka yimid, meel maxalkii maxaa la yidhahdaa meeluu joogay soo baneeyey, macnuhu ma aha. kadib haddana wuxuu yidhi amiruuha kamaa jaa-ad, siday tahay had umara ayaa salafku yidhaahdeen. ha ku mashquulin, waa midii amiruuha kamaa jaa-ad siday u yidhahdeen wey. labadan hadal waa laba hadaloo iska soo horjeeda. waa dul istaagiyey laa yajiiu, laa yataxaraku, laa yanzilu, sidaasuu ku fasiray. waa fasiran yahay hadalkiisu, maxaa yeele mar hadduu yidhi ilaahay subxaanahu wa tacaala meel inta ka soo taga meel kale imaan maayo, haddana waxa uu leeyahay amiruuha kamaa jaa siday tahay umaroo ha dul istaagina, horta laba hadal oo iska hor imaanaya wey. kaas waa tanaaqudka koowaad oo runtii shariidkaasi ku jira. intaa waxaa dheer sida uu sameeyey wadaadka sheekh cumar hadaahu llahu caza wajal,
oo ilaahay subxaanahu wa tacaala sifadiisa nusuulka inta la sheego haddana la leeyahay laa yakhlu laa yataxarag laa yajiiu tafaasiirta noocaasa la raacinayo nafyiga ah waa khawd iyo dhex dabaalasho ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkiisa la dhex dabaasho biduuni cilmin ayadoon wax aqoona aan loo lahayn arrintaasina waa arrin khatara wey walidaalika alimaamu axmed raxmat ullaahi calayhi ahar uu yidhi ayaan rabaa inaan ku iraahdo sheekh cumar alimaamu axmed bn xambal raximah llahu tacaala wiilkiisa cabdullaahi bni axmed asagoo la socda ayuu wuxuu soo maray masjidka masaajidka dhexdiisa wuxuu ku arkay nin qisoonaya oo dadka u sheegaya xadiidu nusuul uga waramaya markaasuu ninkii wuxuu yidhi haddii habeenka shacbaan kala barkiisa haddii la gaaro ilaahay subxaanahu wa tacaala samada adduunya usoo degaya habeenka shacbaan oo kala bar yahay alla samada adduunya usoo degaya bilaa zawaalin walaa intiqaalin walaa tagayuri xaalin ayadoo ilaahay subxaana wa tacala uusan makaan ka soo zuulaynin asoon soo intiqaalaynin oo meel aan u soo wareegaynin asoo xaaladii waxba iska bedelaynin hadalkaasi markuu maqlay alimaamu axmed raximah llahu tacaala aada iyo aad buu u gariiray aad buu warkaas uga naxay midabkiisii waa isbedelay wiilkiisa gacantiisuu ku dhegay waa jareeyey hadalkii uu ka naxay darteed cabdullaahi bni axmed wuxuu yidhi markii uu gacantayda qabsaday maan qabtay buu yidhi ilaa uu qaboobay oo aabba uu degay kadibna wuxuu yidhi imaamu axmed raximah llah qif binaa calaa hada almutakhawid na dul jooji buu yidhi midkan mutakhawidka ah ee dhex dabaalanaya wuxuusan aqoonta u lahayn falamaa xaadaah markuu la soo sinmay qaala yaa haada rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam agyaru calaa rabbihi tacaala mink rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa kaaga qiiro badan rabbigii subxaana wa tacaala adiga buy rasuulka kaaga qiiro badan ilaahay subxaana wa tacaala qul kamaa qaala rasuulu llaahi sala allahu calayhi wasalam nabiga calayhi salaatu wasalaam siduu yidhi dheh wansarif gadoon oo oranda ka tag meesha hadalkii rasuulka yidhi dheh waxaan aad raacraacinayso iyo ta'wiilaadkan aad ku dardarayso jooji sidaasaan leenahay sheekh cumar rasuulka calayhi salaatu wasalaam ayaa kaaga qiiro badan rabbigii subxaanahu wa tacaala sida rasuulka uu yidhi calayhi salaatu wasalaam dheh hadalkan halkaa ku ekay laakiin waxaa cajiiba oo jur-a iyo dhiiranaan ah inaad marna tiraahdo amiruuha kamaa jaa-ad war siday u timid ha loo maray salafku yidhaahdeen adoo haddana salafkii sidaa kasoo guurinaya haddana maca daalika inaad leedahay saan lagama wado iyo saan lagama wado iyo saan lagama wado waa tanaaqud tusinaya runtii jahwareerkaaga jira ilaahay subxaana wa tacaala sifaadkiisa sida loo sugayo tanaaqudka labaad wuxuu yahay oo hadalka sheekh cumar ku jira hadaahu llahu caza wajal wuxuu sheegay oo mar kale uu ku celiyey wuxuu yidhahda sifaadka ilaahay subxaana wa tacaala waan maraynaa mana dul joogsanayno sidaasuu u yihi markuu haddana fasirayey ilaahay subxaana wa tacaala sifatu nusuulka aakhirka maqطaca wuxuu leeyahay nusuulka alla waxaa loola jeedaa naxariistiisa waasicaha laga wadaa hadda ogow wuxuuna soo yidhi ha dul istaagin ka soco haddana muxuu leeyahay ilaahay subxaana wa tacaala naxariistiisa waasica wuxuu leeyahay ilaahay subxaanahu wa tacaala naxariistiisa siduu noogu soo dhoweynayo siday noogu diyaarsan tahay ayaa laga wadaa wax kale lagama wado markaasuu wuxuu yidhi axaadiistan waxay ka hadlaysaa ilaahay subxaana wa tacaala deeqsinimadiisay ka hadlaysaa waxaan intaas ahaynna kuma saabsana nusuulu rabbi tabaaraka wa tacaala marka laga hadlayo wuxuu ka hadlayaa raxmadda ilahay say waasac u tahay sida ilaahay khalqiisa u soo dhoweynayo soo ugu naxariisanayo ciddii dembi dhaaf hayd saacadahaas inuu ka faa'iidaysto doonayo ka faa'iidaysto inuu ka faa'iidaysto doonayo oo ka faa'iidaystaan addoommadiisa inuu soo dhoweynayo ilaahay soo qaabilayo raxmadiisa ay diyaar tahay way waxa laga hadlaya ma ahan yacni maxaad maaragtay maaha wax kale afcaashiisa kariimada iyo deeqsinimadiisa wax ka hadlayo axaadiistan saasay ka hadlaysa wax kale maba ku saabsanaba wuxuu intaa raacay wuxuu yidhi axaadiistu waa axaadiis saxiixa ah waxay ku soo degtay sifatu nusuul ayay axaadiista macnaha ku soo aroortay ku timid waana sifo ilaahay subxaana wa tacaala ma aha sifada makhluuqa ahee la yaqaanee macruufka ah oo ah inuu imaanayo ilaahay subxaana wa tacala makaan imaanayo makaan ka soo tegaayo inuu makaan ka marnaanayo mid kale imaanayo wuxuu haddana kusoo gebagabeeyey nusuustan mar ha dul istaagin macnuhu jadiid calaa kulli xaal axaadiistan waa axaadiis jirta oo saxa oo nusuul rabbi waxay ku soo aroortay waana sifo ilaahi subxaana wa tacaala
oo aan ahayn midda makhluuqa lagu yaqaano meel ka imow meel maqan meel soo cidle soo ka soo taga soo khaaliyeele meel kale saas aan ahayn maxay tahay khalaas ha ku hakanba saas ilaahay ma yiri nabigu ma yiri sallallahu alayhi wasallam ka gudub yani warkaas xagee loo raacaa nusuustan mar hadduu istaagin ma imaanaya laga wadaa meel kama marnaanaya laga wadaa naxariisaa laga wadaa in ilaahay naxariis soo degay subxaanahu wa tacaala waa war runtii aad iyo aad isku baraanbarayo ayadoo haddana maqtacu uu soconayo waqti yar oo kooban waa cajiib tanaaqudka saddexaad ee hadalka sheekh cumar ku jira waxaa weeye mar wuxuu fasirayaa sifatu nuzuul xadiidka markuu fasiraayo yanzilu rabbuna wuxuu leeyahay ilaahay baa soo degaaya ilaa samaa'i dunya fasir maaha miya habeen walba in ilaahay subxaanahu wa tacaala samaa'u dunya u soo degoodo wuxuu ku yidhi u baabiyay alla soo degaaya samada adduunyo u soo degayaa buu leeyahay hadalka imaamu tirmidi waa akhrin doonaa markuu akhrinayo oo alimaamu tirmidi uu leeyahay waa nuzuulu rabbi daahirkeedu ku fasiraya wuxuu leeyahay ilaahay soo degiddiisa buu leeyahay wa nuzuuli rabbi iyo rabbi soo degiddiisa tabaaraka wa tacaala kadib markuu wax yar hadlana wuxuu leeyahay haddaad kelimadda fasirto oo sida luqada carabiga keensanaysa aad ku fasirto tashbiihba ma harsana kelimadda carabigeeda sida ay keensanaysa haddii lagu fasiro oo ah soo degidda ila asigana waa ku fasiray tashbiih ma harsana buu yidhi lafdigan sida luqada carabiga uu ku keenayo ka bacdi markaa sugto tashbiih ma dhimanaba waxaa isweydiin mudan marka hadduu asigii noo fasiray nuzuulki ee uu yidhi ilaahay baa soo degaaya oo af soomaali uu ku fasiray nuzuulu rabbi markuu marayana uu yidhi soo degiddi rabbi oo sidaa ku fasiray haddana isla markaa wax yar kadib wuxuu leeyahay haddaad aan kelimadda ku fasirto sida carabigeedu uu yahay tashbiih kuuma dhinna calaa xaddi qowlihi haddii la qabto shiiku marka asiga mushabbih noqonaya marka ma mushabbih baa tahay sheekh cumarow ilan waa soo fasirtayoo waxaa tihi yanzilu rabbuna rabbi baa soo degaaya tafsiir waayo ahlu sunnuhu waxay kaa doonayaan waa intaas ilaaha soo degaya nuzuulu rabbi daahirkaas ku mar naska daahirkiisa waay daahirkii buu ku fasiray haddana wuxuu leeyahay in la fasiraahi ama haddii la fasiro kelimadan sida carabiga luqada carabiga ay ku tusinaysa lagu fasiro waxa weeye tashbiih ma dhinna buu yidhi wax tashbiihu haray ma jiraan waa tanaaqud kale runtii nasalu allahi asalaama walcaafiya waxaa ka mid ah tanaaqudaadka wadaadku uu ku dhacay runtii oo alimaamu tirmidi raximah llahu tacaala hadalkiisa markuu akrinayay imaamu tirmidi baa wuxuu yidhi fa ankarat iljahmiya jahmiyadu waxay inkireen hadalka tirmidi waan akrin doonaa markaasuu wuxuu yidhi markuu hadalka tirmidi sheegay wuxuu yidhaahday qofkii riwaayaadka suga faman ahbata riwaayaat waxaa dhahaya sheekh cumar qofkii riwaayadaha iyo axaadiidta soo aroora suga jahminimo waa ka badbaaday buu yidhi macnaha waa sugaa xadiidka nebiga waa ka sugan yahay aayaddan waa aayad qur'aan oo dabcan ayadu war ma lahan qofkii sidaa u suga jahmiye waa ka badbaaday marka haddii qofku uu riwaayaadka sugo jahminimo saas uga badbaadayba macnaha dariiqadii jahmiyadu wuxuu ka dhigay inay axaadiidta sifaadka ku soo aroortay gebi ahaanba ay leeyihiin ma aaminsanin mana rumaysnin warkaasina war jira ma aha jahmiyada nusuusta qaar way diidaan waxay diidi karaan waxay diidi waayaan oo sugnaanteedu ay caddahay oo ay u waayaan shubho ay ku duraan way ta'wiiliyaan taasna jahmiyadii ashaaciradu waa ka siman yihiin markuu jahmiyada keliya ku riixayana sheikhu wuxuu rabaa inuu jahmiyey ashaaciro kala farqiyo laakiin way noo imaan doontaa isku sibay u fasiraan farqina uma dhexeeyo dhankaasi isla warkiisa waxaa burinaya markuu sidaa warka u sheego uu yidhaahdo qofkii riwaayaadka sugahay jahminimo waa ka badbaaday ayaa alimaamu tirmidi wuxuu leeyahay warkaas wax yar kadib fata'awalat iljahmiyatu hadihi alaayaat jahmiyadu aayaadkaanay ta'wiiliyeen maysan inkirin aayaadka maysan dhihin aayadahan qur-aanka kama mid aha laakiin way ta'wiiliyeenoo way leexiyeen ta'wiilkaana waa taxriif wey way leexiyeen فتأولت الجهمية هذه الآيات ففسروها فسرين على غير ما فسر أهل العلم أهل العلم سيكون فسرين سيئنا غير فسرين هذا كان مركو الشيخ عمر دول مري فتأولت الجهمية ما دول استاجن لأنه وحو دريميا وحو صوشر رحي إني برينايا وجهمية أتيري إن النصوص إنكريان مركي فتأولت الجهمية الإمام الترمذي ويرى هل كان فقرة مركو سوق جاري فقرة اسمه دول تاجن وكصعبة لأنه فقرداني waxay naqdi ku tahay oo ay naqdi ku tahay
hadalkii uu wax yar soo sheegay ka hor oo ahaa qofkii aayaadka suga ama nusuusta suga qofkaasi inuu jahminimo ka badbaadiy. alimaamu tirmidina wuxuu noo sheegayaa jahminimaduba inay tahay ama jahmiyadu inayba ta'wiili jireen aayaadkan. waa hadalka alimaamu tirmidi iyo hadalkiisa oo iska hor imaanayo isburinayo wey. tanaaqudka shanaad ee warka shiiqa ku jira, sheekh cumar warkiisa ku jira waxa waaye markuu akrinaya hadalkii alimaamu tirmidi raximahullah fafasaruuha calaa gayri maa fasarahu ahlulcilm. jahmiyadu ka hadlaya wuxuu yihi nusuustii bay fasireen iyo aayaadkii sifaatka iyo adiladii sifaatka waxay ku fasireen ahlulcilmigu waxay ku fasireen waxaanan ahayn. taana way noo imaan doontaa in ahlulcilmigu fasiri jireen adiladii nusuusta sifaatka, laakiin ay fasiri jireen tafsiir ka duwan midka jahmiyada iyo ciddii dariiqa jahmiyada raacday arrintaa ku raacday sida ashaacirada iyo muctasilada. kadib wuxuu yidhaahday jahmiyadu hadalka imaamka waxaa laga wadaa buu yihi jahmiyadu waxay leeyihiin asamcu waxay yidhahdeen samci lagama wado. samciguna hadda ogaada sheekh cumar waa fasiray maqtac haddaad dhegaysataan maqal buu ku fasiray waana tafsiir. wahuwa ilaahi asamiicu albasiir, ilahi waa ku wax maqla albasiir oo waxna arkaa ilahi subxana wa tacaala. horan muxuu noogu sheegay in la fasiraahi inay tashbiih tahay oo tashbiih dhinayn. markaasuu yihi nimanka la yidhaha jahmiyada samciga waxay leeyihiin loolama jeedo samci maqal lagama wado saasay leeyihiin. ta'wiilkoodii uu fasirayaa. waxay kaloo leeyihiin buu yidhi alyad lagama wado yad lagama wado. yacni markuu halkaa maraayo xoogaa talaka ubaa galay oo yaro hakaduu geliyay hadalka. yadba maxaad maaragtay waxa weeyaan waxaa maxaad maaragtay yad loolama jeedo ilan kelimada yadaa meesha ku jirto wadaadku ka cararaya sida muuqata. kadibna wuxuu yidhahday yad lagama waday leeyihiin. sidoo kale wuxuu yidhahday basarka waxay leeyihiin basar loolama jeedo arag buu ku fasiray asigana wuu macneeyey. walbasar arga loolama jeedo. dariiqa marka jahmiyadu ay martay oo hadda jahmiyadu warkooda uu ku fasiraayo waa isla dariiqii ay mareen ashaacirada markii sifatulyad la joogo waxay yidhahdeen yad lagama wado. wadaadka laftirkiisana saasuu leeyahay. yacni yad lagama wado midda luqada carabiga lagu yaqaano ma aha midda maaragta daahirka hadalka ka muuqanayo wax kalea loola jeedaa. idan famal farq sida hadda jahmiyada asiga uu ku macneeyey inay samcigi leeyihiin samci lagama wado, gacantii leeyihiin gacan lagama wado, maqalkii leeyihiin maqal lagama wado, iyo midda asiga uu soo sheegayo uu leeyahay nuzuulka waa imaana lagama wado oo meeluu kasoo tagaa lagama wado. gacanta markaan ka hadlayno gacan lagama wado, gacan dhihi mayno, wax kalaa loola jeedaa. waa isla ta'wiilkii jahmiyada waay. waxayna ka mid tahay marka run ahaantii tanaaqudaadka faraha badan ee warka sheekh cumar ku jira hadaahu llah. horena waxaan usoo marnay inuu sifaatkii fasirayay laftirkiisa. waa soo sheegnay inuu yanzilu rabbuna allaa soo degaya lahaa, tashbiihna oo ku tilmaamay haddana inay tashbiih tahay. tanaaqudkaasna horaan usoo marnay. hadallada sheekh cumar waxaa kaloo ku jiray tashbiihii inuu macno kale u sheegay haddana, gaar ahaan samcigii basarka markuu lahaa ama uu ka hadlayay. wuxuu yidhaahday tashbiiha waxaa la yidhaahdaa inaad tidhaahdo haddii isha laga hadlayo ama arag laga hadlayo xadaquu leeyahay oo maqaaruu leeyahay iyo wax noocaas haddaad sheegto ayaa tashbiih la yidhaahdaa. midda oo tashbiih markay noqonaysa waxa weeye markaad tidhaahdo basar oo xadaqadan iyo baalkan isku maxalkan maxaa la yidhahdaa maqaarkan iyo waxyaabahaas oo isku wax ku arka ilaahay markaad tidhahdo markay waa tashbiih markay waa sabab markaas. horena tashbiiha macno kale uu noogu soo sheego ugu soo fasiray. waxaa ka mid ah tanaaqudaadka sheekh cumar markuu akrinaya hadalka uu leeyahay alimaam isxaaq ibnu rahawey inamaa yakunu tashbiihu ida qaala yadun ka yadin aw mithlu yadin aw samcun ka samcin ila aakhirihi. hadalkaasi markuu akhriyey waa hadalka isxaaq ibnu rahawey ayuu wuxuu ku fasiray tafsiir asiga min cindihi ah oo jeebkiisa ah ayuu ku fasiray. wuxuu yidhi haddaad tidhaahdo alyad xaqiiqa laga wadaa bal yadaahu mabsuudataani markii la fasirayo ama la fasirayo limaa khalaqtu biyadaya, haddaad tidhaahdo yadka xaqiiqa laga wadaa oo gacan baa laga wadaa haddaad tidhaahdo waxay la mid tahay buu yidhi adigoo yidhi yadun ka yadin. wuxuu ku fasiraa hadalkii alimaam isxaaq ibnu rahweyh ayuu sidaa ku fasiraya. ayadoo hore aan usoo marnay samci iyo basar labadaba inuu fasiro wadaadku uu yihi samci waa maqal basarna waa arag, waa tafsiir waay.
laakiin yad haddaad fasirto oo sida luqada ay ku tahay aad ku fasirto oo aad tiraahdo ilaahay subxaanahu wa tacaala bal yadaahu mabsuudataani labadiisa gacmood waa fidsan yihiin limaa khalaqtu biyadaya ibliisow maxaad ugu sujuudi weyse midkaan ku abuuray labadayda gacmood haddaad tiraahdo arrintaasi waxay la mid tahay adoo yidhi yadun ka yadin oo tashbiiha isxaaq ibnu raahweyhi uu sheegayuu leeyahay tashbiihu waa inaad tiraahdo yadun ka yadin wa samcun ka samcin iyo wixii la mida ayaa tashbiiha markuu leeyahay sidaasaa laga wadaa buu yidhi وقال إسحاق بن إبراهيم وحيري إسحاق بن راهويه إنما يكون التشبيه إذا قال دون يد كيد ومثل يد أو مثل يد أو سمع كسمع أو سمع كسمع يد يد محيطها مرقف إلى هذا يد وحقيقة وحل لغة عربية يكون كين يسو أي يد نتاي يد كيد ومطعمة ما كل دوين تي مركز سيدا عربي يكون تهي ويد لو يقان عربي هدو قف إلى تاس ويه وعربي سيدا يكون كين وحدو يراد وحول من التشبيه ما بدي ما أنا كه waana hadalka imaamkii oo runtii la leexiyey ayadoo haba yaraatee wax tusinaya aysan jirin bal alimaam isxaaq ibnu rahweyhi hadalkiisa waxaa ku jira asigaa fasiray waxa tashbiihya asigaana sheegay waxaan akhrinaynaa hadalka isxaaq ibnu rahweyhi ee wadaadka uu akhriyey sunanu tirmidi uu ka akhriyey hadalkani uu leeyahay alimaam isxaaq ibnu rahweyh wuxuu ku sheegay alimaamu tirmidi raximahullah xadiidka lambarkiisu uu yahay 670 xadiidka hoostiisa ayuu hadalka ku sheegay alimaamu tirmidi kalaamka tirmidi raximah llahu tacaala uu shiiqu akhriyey aana soo sheegna si qaldan dhammaantii inuu akhriyay ama meelo badan oo ka mid ah ayuu hadalkan ku jiray wuxuu yidhi isxaaq bnu rahweyhi inamaa yakunu tashbiihu idaa qaala yadun ka yadin aw mithlu yadin aw samcun ka samcin aw mithlu samcin tashbiih waxaa la yidhaahdaa buu yidhi hadduu yidhaahdo gacantu gacantay la mid tahay ama waa gacantoo kale ama uu yidhahdo maqalkuu la mid yahay ama uu yidhaahdo waa maqalkoo kale ama uu yidhaahdo samcigu waa samcigoo kale fa haada tashbiihu kaasaa tashbiiha hadalkaasi wadaadku wuxuu ku fasiray macnihiisu inuu yahay haddaad tidhaahdo ilaahay subxaana wa tacaala yad buu leeyaho gacan buu alla leeyaho allah ku sifaysan inaad hadalkan soo gelaysid waana arrin baatila iyo hadalkii imaamkii oo lagu ximbaarayo runtii waxuusan ahayn iyo wuxuusan tusinayn midna taana waxaa caddaynaya ama hadalkiisa radinaya isxaaq ibnu rahwey hadalkiisa soo socda wuxuu yidhi wa ama idaa qaala amaa hadduu yidhaahdo kamaa qaala allahu tacaala siduu alla yidhi hadduu yidhaahdo yadun wa samcun wa basarun hadduu yidhaahdo ilaahay subxaana wa tacaala gacan buu leeyahay maqal buu leeyahay arag buu leeyahay hadduu yidhaahdo walaa yaquulu uusan dhihin kayfa aragiisu waa sidee gacantiisa waa sidee waa qaabkee hadduusan dhihin walaa yaquulu uusanna dhihin mithlu samcin walaa ka samcin maqalkaygoo kala way ama maqalka makhluuqoo kala way hadduusan dhihin fa hada laa yakunu tashbiihan hadalkaanu tashbiih noqon maayo hadduu ilaahay sifaadkiisa u sugo laakiin uu yidhaahda sifaadka makhluuqa lama mid aha tashbiih ma aha sheekh cumarna muxuu leeyahay haddaad sifaadka daahirkooda ku sugto oo sida carabigu tusinaya ama kelimadda carabiga macnaheeda aad ku fasirto tashbiihay noqonaysaa buu yidhi marka kalaamkii imaamka oo runtii la luqun leexiyey oo meeluusan jirin lala aaday way taasna waxaa keenaya suu lictiqaadka ayaa keenaya marka wuxuu yidhi fahada laa yakunu tashbiihan wahuwa kama qaala allahu tacala waana siduu alla yidhi fi kitaabihi laysa kamilihi shayun wahuwa asamiicu albasiir waana aayadda qaanuunka u ah iyo qaacidada ahlu sunna waljamaaca almutabicuuna limanhaji salafi الصaalix dariiqadii ay mareen wayo dariiqadaasi tanaaqudaadkaasi marka faraha badan ee wadaadku uu ku dhacay maxaa sabab u ah in la isweydiiyo aad iyo aad bay muhiim u tahay waxaa sabab u ah laakiin wadaadku uusan balbalaarin ama uusan sheeginba wuxuu ku socdaa manhajkii ashaacirada ee ahaa sifaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ama ta'wiili ama tafwiidi waa arrintii uu ka dardaarmay ama uu ku towjiihiyey ashaacirada saaxibu jawharati الtawxiid wa kulu nasin awhama tashbiiha awilhu aw fawid warum tanziiha miduu yidhi wey nas walba oo mala geliya tashbiih asigu la tahay leexi ama tafwiidi waxaad tidhaahdaa macnaheeda maba la yaqaanba waana labada uu ku dhex wareeray wadaadku markuu ka hadlayay nusuusta sifaadka aad buu ugu dhex wareeray
waxaan rabaa marka maadaama tanaaqudaadkaas faraha badan la wadaadka hadalkiisu ay ku jiraan uuna rabo manhajkii salafka asalafu saalix inuu ka dhigo midkan ay ashaaciradu aaminsan yihiin inaan bal sheegno horta salafu saalix may ka aaminsanaayeen sifaadka ilaahi subxaanahu wa tacaala. salafu saalix min asaxaabati wataabiciin dadkii noolaa alquruun almufadala waxay aaminsanaayeen a'imada waqtigaasi joogtay ilaahay subxaanahu wa tacaala nusuusta ku soo aroortay sifaadkiisa min alkitaabi wasunna in la rumeeyo daahirkeedana lagu rumeeyo. sifaadkaasi kow in la rumeeyo la sugo wixii nusuusahe sugan in la sugo macaanida ay tusinayso iyo daahirkay tusinaysana in la rumeeyo la qaato ayadoo mar walba aan lagu shabahaynin sifaadka makhluuqa aan lagu shabahaynin oo laysa ka milihi shay-un ay qaacidadu tahay. sidaasaa horta wuxuu ahaa ictiqaadkii salafka. amiruha kamaa jaa-ad markay leeyihiin aimadu salafkuna daahirkeeda ku mara oo ha ta'wiilina sida jahmiyadii iyo muctasiladu ay u ta'wiiliyaan waaye hadafka aimada salafka. waxaana taa caddaynaya oo aan ka hadli doonaa in sha allahu tacaala salafka sida ay u fasiri jireen nusuusta ku soo aroortay sifaadka ilaahi subxaanahu wa tacaala taasoo tusinaysa in nusuusta macaanideeda ay garanayeen salafku oo ay yaqiineen. calaa sabiili lmithaal waxaan rabaa marka inaan akhriyo alimaam asaabuni raximah llahu tacaala hadal uu leeyahay asigoo ka waramaya caqiidadii salafka iyo ahlulxadiidka waxa ay ka qabaan sifaadka ilaahi subxaanahu wa tacaala iyo mowqifkooda. asaabuni raximah llahu tacaala waa imaam macruufa oo aad iyo aad loo yaqaano oo dadka dalabatulcilmiga iyo ahlulcilmigu ay aad u garanayaan. abu cuثmaan ismaaciil ibn cabdiraxmaan asaabuni annaysaburi. imaamkan xagga madhabka waxaa la sheegaa inuu ka mid ahaa min aimati shaaficiya wuxuuna dhashay sanadku markuu ahaa 373 wuxuuna geeriyooday 449 hijriya. wuxuu ka mid ahaa min aqraani imaam albayhaqi raximah llah. albayhaqi ayaa aad iyo aad u ammaanay oo saabuni waxa uu yahay asigaa noo sheegay. aimo fara badan baa ammaantay laakiin bayhaqi hadalkiisaan ku kaaftoomaynaa. wuxuu yihi albayhaqi raximah llah imaamu lmuslimiina xaqa wa shaykhu lislaami sidqa wa ahlu casrihi kulluhum mudcinuuna liculuwi sha'nihi fi اddiini wa siyaadati wa xusni اlictiqaadi wa kahrati اlcilm wa luzuumi طariiqati salaf. waa imaamkii muslimiinta oo dhaba buu yihi waana shaykhu lislaam sida runta ah. dadka ku noolaa casrigiisa ee ku waktiga ahaa way u hogaansanaayeen buu yihi sha'nigiisoo sareeya darteed xagga diinka iyo siyaadada iyo hogaanka iyo caqiida wanaagga iyo cilmiga faraha badan ilaahay uu siiyey iyo dariiqi salafka uu laazimay ayay dadku ugu hogaansanaayeen lagu weyneyn jiray arrintaasina uu ahaa nin macruuf ku ah. imaamka sidaa ah asaabuni raximah llah risaalo wuxuu leeyahay la yihahda caqiidatu salafi wa asxaabi اlxadiid. wuxuu yihi asigoo ka hadlaya caqiidadii salafka asxaabu اlxadiidi xafida allahu axyaa'ahum waraxima amwaatahum yashhaduuna lilahi tacaala bilwaxdaaniya walirasuuli salى اllahu alayhi wasalam biاrisaalati wاnubuwa. ahlulxadiidka ama asxaabu lxadiid kuwooda nool allaha xafido kuwooda dhintana allaha u naxariiste waxay qirayaan oo ilaahay u qirayaan waxdaaniyad iyo kelinnimo. rasuulka salى اllahu alayhi wasalam risaalo iyo nubuway u qirayaan. wayacrifuuna rabbahum caza wajala bisifaatihi ilaahayna waxay ku garanayaan oy ku yaqaanaan sifaatkiisa allatii nataqa biha waxyuhu wa tanziiluh sifaatkaasoo waxyigiisa iyo tanziilkiisu ay ku dhawaaqeen. aw shahida lahu biha rasuuluhu salى اllahu alayhi wasalam ama rasuulkiisa calayhi salaatu wasalaam uga marqaati kacay calaa maa waradat alakhbaaru asixaaxu bihi sida akhbaarta sixaaxa ay ku soo aroortay wanaqalat alcuduulu hiqaatu canhu cuduusha hiqaadka ah lagu kalsoon yahana ay ka soo naqliyeen. wayuhbituuna lilahi jala wacala maa ahbatahu linafsihi fi kitaabih waxay ilaahay u sugayaan waxa uu naftiisa u sugay fi kitaabih wa calaa lisaani rasuulihi salى اllahu alيه wasalam walaa yactaqiduuna ma caqiidaynayaan salafku tashbiihan lisifaatihi bisifaati khalqih ma caqiidaynayaan sifaadka alleh oo ma aaminsana in allah subxaana wa tacaala sifaadkiisa lagu shabaho sifaadka khalqiga. fayaquuluuna waxay leeyihiin
inahu khalaqa aadama biyadayhi aadam labadiisa gacmooduu ku abuuray kamaa nasa subxaanahu calayhi fii qowlih qaala yaa ibliisu maa manacaka an tasjuda limaa khalaqtu biyadaya. maxaa kuu diiday ibliisow inaad u sujuuddo midkii aan ku abuuray labadayda gacmood. walaa yuxarifuuna alkelima hadalkana ka leexin maayaan, waa aimadii salafka e can mawaadicihi meelihiisa ka leexin maayaan, hadalka meeshiisa ka leexin maayaan. naxariisaa timaada iyo waxaa loola jeedaa naxariis soo dhowaata iyo sidaasi ma yidhaahdaan aimadii salafka. walaa yuxarifuuna alkelima hadalka kama leexinayaan can mawaadicihi meelihiisa ka leexin maayaan bixamli اlyadayni calى الnicmatayni aw اlquwatayn. hadalka mawaadicdiisa ka leexin maayaan ximbaarida ay ku ximbaarayaan markaa labada gacmood laba nicmo ama laba awoodood. taxriif almuctasilati waاljahmiya, taxriifka muctasilada iyo jahmiyada si u taxriifiyaan u taxriifin maayaan. ahlakahum ullah, allaha halaagay buu yihi kuwaas. walaa yukayifuunaha bikayfa aw shibhiha, mana ku kayfiyeynayaan kayfe iyo wixii la mida biaydi lmakhluuqiina makhluuqaadka gacmahooda ku shabihi maayaan tashbiiha almushabihati sida mushabihadu ay u shabahaan. khadalahum ullah, allaha khudlaaniyey buu, allaha duleeye. hadalkaasi waa hadalka alimaamu saabuni raximah ullah oo uu ka soo guurinayo muctaqadkii salafku ay aaminsanaayeen. ma leexinayaan marka, gacmaha ku fasiri maayaan nicmo iyo quwa ku fasiri maayaan. waa ta'wiilka hadallada sheekh cumar ku jirtay in maaragtay culimmada qaar ay ta'wiiliyaan oo maaragtay ahlu sunnaha qayb ka mid ay ta'wiilka qaateen. ta'wiilka waxa qaatay waa muctasilada iyo jahmiyada iyo ciddii ku waafaqday sida ashaacirada. manhajka salafku laakiin waa maxay? sifaatka ilaahi subxaanahu wa tacaala in lagu sugo calaa daahir nusuus, nusuusta daahirkeeda sida ay yihiin, isla markaasna annagoo aaminsan laysa ka milihi shay-un wa huwa samiicu lbasiir, wax ilaahay la mida inaysan jirin subxaanahu wa tacaala. taas waa muctaqadkii salafka oo sifaatka ilaahi subxaanahu wa tacaala ku tacalluqa ama ku saabsan asigoo kooban. waqfada saddexaad waxay tahay salafku iyo ahlulxadiidka sifaatka ilaahi subxaanahu wa tacaala nusuusta ku soo aroortay ma fasiri jireen. nusuusta ku soo aroortay sifaatka allah subxaanahu wa tacaala ma fasiri jireen. macnaha sifaatkaasna ma yaqiineen, mase sida wadaadku sheegaayo waxay dhihi jireen macnaha lama yaqaane ha laga socdo. ma sidaasa amiruha kamaa jaa-ad ay salafku yidhaahdeen, ma sidaasay ula jeedeen? xaqiiqadu waa inaysan sidaa ahayn. salafku sifaatka macnahooda waa yaqiineen, way fasiri jireen nusuusta ku soo aroorta, laakiin markay leeyihiin ha la maro macnaheedu waxa waaye yaan la ta'wiilinin, yaan la tashbiihinin. ta'wiil iyo tashbiihba ha laga daayo, nusuustaasi daahirkeeda ilaahay subxaanahu wa tacaala iyo rasuulkiisa siday uga hadleen daahirkeeda ha lagu qaato. ilaa allah subxaanahu wa tacala iyo rasuulkiisa bilisaanin carabiyin mubiin baynu ugala hadleen. waxaa tusinaya marka salafku inay macnaha sifaatka garanayeen. aahaarta soo socotaan tusaale ahaan usoo qaadanaynaa. alimaamu albukhaari raximah اllahu tacaala fii saxiixi اlbukhaari baabka wa kaana carshuhu cala almaa, aayaddaas buu baab ka dhigay min kitaabi الtawxiid. way jir baabkan meelo kalena uu ku sheegay, laakiin kitaabu الtawxiid min saxiixi اlbukhaari waxaa ku jira baab uu yihi baabun wa kaana carshuhu cala almaa. baabkaasi markuu sheegay ayuu wuxuu soo naqliyey ahar wuxuu ka soo raray abulcaaliya. aharkaasina waa mucalaq. alimaamu albukhaari raximah اllahu tacala wuxuu yihi qaala abulcaaliya istawaa ila asamaa ay irtafaca. istawaa ila asamaa'i ay irtafaca. aayaddii uma istawaa ila asamaa ee fii suurati albaqara ku jirtay, istawaada markii ilaa lagu gudbiyo culimmada qaara qasada ku fasiray, waa markii ilaa lagu gudbiyo. ama markii calaa lagu gudbiyo waxay isku waafaqsan yihiin sarreyn inay tahay. laakiin ilaa markii lagu gudbiya qaarna waxay yidhaahdeen bimacnaa aqbala wa qasada wey, qaarna waxay yidhahdeen ilaadaani waa bimacnaa calaa oo waa ka sare maro wey. abulcaaliya uma istawaa ila asamaa'i wuxuu ku fasiray irtafaca. soo tafsiir ma ah, waa tafsiir iyo macnayn sifatu listiwaa la macnaynayo wey, oo lagu fasirayo sarrayn. alimaamu albukhaari raximah اllahu tacaala sidoo kale isla baabkaas wuxuu ku soo saaray mucalaqan ahar mujaahid, isagoo mucalaqa ayuu soo saaray. wuxuu yihi qaala mujaahid istawaa calaa cala alcarshi. mujaahid wuxuu yihi istawaa calaa cala alcarshi.
la dhihi maa waa istawooday, istawaa wuxuu yahana lama yaqaan, sax ma ah. waa fasiray mujaahid, istawaa macnaheedu waxa waaye uu yidhi ilaahay carshiguu ka sara maray, saasaa laga wadaa. waa tafsiir waadixa oo cad. aharka saddexaad oo ka mid a aathaarta salafka ee tusinaya inay fasiri jireen oo ay macnay jireen sifaadka ilaahay subxaanahu wa tacaala ayagoo mar walba diidaya tashbiihaha iyo in la keyfiyeeyo intaba. aharka saddexaad waxaa wariyay alimaamu albayhaqi fi اlasmaaءi wالصifaat wاddaarami fi اraddi cala اljahmiya wاllalaka'i fi sharxi usuuli اctiqaadi ahli الsunati wاljamaca wالsaabuni fi caqiidati salaf waasxaabi اlxadiid iyo keyrkoodba waxay wariyeen ana rajula jaءa ilى malik, nin baa maalig u yimid raximah اllah asigoo weydiinaya alraxmaanu calى alcarshi istawaa, qaala wuxuu yidhi ninkii kayfa istawaa, ilahay siduu carshiga uga saro maray. ogow السؤال waa can الkayfiya, can kayfiyaة الاstiwاء laa macna الاstiwاء. waa kayfiyaha istawaha waa sidee, qaabkee oo ilahay carshiga uga saro maray. alimaamu malik aad buu u carooday, wejigiisu waa isbedelay, dhidid fara badan baa ka yimid sida aharka ku jirta, madaxuu raariciyey asigoo aad iyo aad ma aragtay uga yaaban su-aasha noocaana, qaabkee. maxaa yeele kayf ilahay laguma weydiiyey subxaanaه wa tacaala, oo kayfiyada ilaahay baa garanaya subxaanahu wa tacaala. markaa kadib bu wuxuu yihi alimaamu malik alkayfu gayru macluum wاlistiwaaءu gayru majhuul wاliimaanu bihi waajib wالsu'aalu canhu bidcة wainii la akhaafu an takuna daala ثuma amara bihi faأkrij. wuxuu yihi alkayfu gayru macluum, riwaayadaha qaarna waxaa ku jirta alkayfu gayru macquul, waa mid aanan caqliga gelayn oo la garanayn, lama yaqaano macnaha wax la tasawuri karo ama caqliga bani aadamka gelaya ama makhluuqa ma aha. kayfiyada ilaahay baa garanaya. macnaheedu ma aha gebi ahaanba kayfiya wax ma jirto, laakiin kayfiyadu ma naqaan annaga. ilaahay subxaanaه wa tacaala sifaadkiisa siday tahaan u sugaynaa. kayfiya haddii waxna laga weydiiyana waxaan leenahay laa naclamu اlkayfiyata allahu aclamu biha, ilaahay baa garanaya. wاlistiwaaءu gayru majhuul, istawuhuna wuxuu yihi waa midaan laga jaahil ahayn. wاlistiwaaءu gayru majhuul, ninka dhahaya marka istawaa macnaheeda lama yaqaano wuxuu leeyahay waa laga jaahilya. waxayna rabaan caqiidadaasi in loo tiiriyo a'imadii salafka. a'imadii salafka sida imaam maaligna maxay leeyihiin istawuhu waa midaan laga jaahil ahayn, macnaha waa la yaqaano, macruuf wey, lagama jaahil aha. luqada carabiga waa macruuf, istawaa calى اlcarshi bimacnaa calaa wey sida uu ku fasira mujaahid, bimacnaa irtafaca wey sida uu ku fasira abulcaaliya. istawuhu waa gayru majhuul, waa midaan laga jaahil ahayn. wاliimaanu bihi waajibun, istawaha in la rumeeyo inuu allah subxaanaه wa tacaala carshigiisa ka sareeyana waa waajib. wasu'aalu canhu bidcة, in kayfiyada wax la iska weydiiyo la yihaahdo kayfa iyo wixii la mida waa bidca. wainii la akhaafu, aniga waxaan ka baqayaa an takuuna daalan, inaad noqoto buu yihi nin daalahoo lunsan. riwaayada qaar waxaa ku jirta inuu yihi waxaan kuu arkaa nin lunsan inaad tahay. kadibna wuxuu amray in la saaro, waana la saaray, halaga bixiya buu yihi ninkan. maxaa yeeley ninkan wuxuu la yimid ou dhex galay waxaana loo dirsan oo ah kayfiyatu sifaat اllahi caza wajal. ilahay baa kayfiyada yaqaana. shaahidku waxa waaye alistiwaaءu gayru majhuul, saasuu yihi imaam maalik, istawu waa midaan laga jaahil ahayn. marka salafku jaahil kama ahayn macaanida nusuusta sifaatka ee way garanayeen, macaanida way yaqiineen, laakiin waxa ay mar walba ay dhihi jireen ma garanayno waa kayfiyada, waana midda imaam maalik uu yihi waa gayru macquul ama gayru macluum. aharka afaraad ee ka mida min aathaari salaf oo tusinaya inay salafku sugi jireen oo ama ay gara jireen macnaha sifaadka, waxaa waaye aharka afaraad oon usoo qaadanayno tusaale ahaan ahar uu sheegay alimaamu saabuni raximah اllahu tacaala. wuxuu yihi asaabuni su-ila abu cali alxusein ibn fadl bajali, ninkan baa waxaa la weydiiyey can اlistiwaa, ayaa wax laga weydiiyey. wa qiila lahu waxaa lagu yihi kayfa istawaa calىa carshih, sow carshigiisa uga saro maray, waa kayfiyadii. faqaala wuxuu yihi ana laa acrifu min anbaaءi اlgaybi ila miqdaara maa kushifa lana, akhbaarta qeybka anugu ka garan maayo ilaa intii noola fayday allahi rasuul noo sheegeen mooyaane. waqad aclamanaa jala dikruh, allana wuxuuna ogeysiiyey annahu istawaa calىa carshihi, carshigiisa inuu ka sareeyo. walam yukhbirnaa kayfa istawaa, siduu uga saro marayna ilaahay nooma sheegin. kayfiyada ma aqaano, laakiin inuu sareeyo alla noo sheegay.
inuu carshigiisa ka shareeyo noo sheegay, qaabka uga sarreeyana ilaahay nooma sheegin, cilmigana annaga waxaan ka garanaynaa buu yidhi intuu ilaahay nooga sheegay. Intuu ilaahay nooga sheegay waa maxay? sifaatkan alla uu noo sheegay macnahoodu macruufka yihiin, siday yihiin ilaahay ugu sugno subxaanahu wa tacaala. imaamkan uu ka soo naqliyay asaabuni hadalka alimaamu dahabi fi siyar waa u tarjameeyey, wuxuuna ku tilmaamay inuu yahay alimaam allugawi almuxadis caalimu casrihi. wuxuuna dhintay sanadku markuu ahaa 282 ayuu dhintay, min alquruuni almufadala ama fi lquruuni almufadala ayuu ku dhex jiray. sidoo kale afarka shanaad ee tusaalaha noogu ah salafku inay fasiri jireen sifaatka ilaahi subxaana wa tacaala macnihiisa, macnahana ay garanayeen, waxaa weeye afar la mida kii imaamu maalik raximah llahu tacaala. afarkan waxaa soo saaray allaalakaai fi sharxi usuuli ictiqaadi ahli sunnati waljamaca wa ibnu bata fi libaana can ibni cuyayna, sufyaan ibni cuyayna ayaa laga wariyey. qaala sufyaan wuxuu yihi su-ila rabicatu ibn cabdiraxmaan, rabicatu ibn cabdiraxmaan rabicatu ra'yi waa shaykhu limaami maalik raximah llahu tacaala, waxaa la weydiiyey can qowlihi alraxmaanu cala alcarshi istawaa kayfa istawaa, qaala wuxuu yihi alistiwaau gayru majhuul. hadalkan wuxuu waafaqsan yahay hadalkii imaamu maalik ee aan soo akrinay, istawuhu waa midaan laga jaahil ahayn, wاlkayfu gayru macquul, kayfkuna waa midaan macquul ahayn. aharka imaam maalik buu waafaqsan yahay. alimaamu maalik iyo shiikhiisa hal jawaab bay uga jawaabeen su-aashaas. labada jawaab ee labada imaam ay bixiyeen oo ka mida min aimati salaf, labada imaame ka mida min aimati salaf jawaabta ay bixiyeen waa jawaab midaysan waay. labada jawaaboodna waxayna tusayaan in macna alistawa cinda salaf ay macruuf ahayd, istawaha macnihiisa inaan laga jaahil ahayn oo la garanayo. taasna walaalayaal waxayna tusinaysaa in la yaqaanay macaanida sifaatka ilaahi subxaana wa tacaala, salafkuna ay garanayeen. madhabka loo tiirinayo la leeyahay salafku macnahay tafwiidi jireenoo macaanida sifaatka ma yaqaanaanna inuu yahay madhab baatilah, salafkuna aysan shaqo ku lahayn, ciddii doontaba ha u tiiriso. tusaalaha lixaad waa hadalka alimaamu tirmidi ee wadaadka uu akhriyey markuu akrinayay. hadalka imaamu tirmidi raximah llahu tacaala ayuu ku jiray. wuxuu yihi alimaamu tirmidi raximah llahu tacaala, waqad dakara allahu caza wajala fi gayri mowdicin min kitaabihi, ilaahay wuxuu sheegay buu yihi hal meel waxaan ahayn oo kitaabkiisa ka mida wuxuu ku sheegay alyadaba buu sheegay, gacan buu sheegay, wasamca maqal buu sheegay, walbasara arag buu sheegay. fata'awalat iljahmiyatu hadihi alaayaat, jahmiyada aayaadkan way leexiyeen, fafasaruuha waxay ku fasireen calaa gayri maa fasara ahlulcilm, ahlulcilmigu waxay ku fasireen waxaan ahayn bay ku fasireen. wa qaaluu waxay yidhaahdeen ina allaha lam yakhluq aadama biyadihi, ilaahay aadam gacantiisa kuma abuurin. wa qaaluu waxay yidhaahdeen ina macna alyadi haahuna alquwa, yad macnaheeda halkaana awood baa loola jeedaa bay yidhaahdeen. ilaa akhiri kalaamihi raximah llahu tacaala. hadalka shaahidka aan ka leenaha wuxuu yahay fafasaruuha calaa gayri maa fasara ahlulcilmi, jahmiyada nusuustani waxay ku fasireen, ahlulcilmiga waxay ku fasireen waxaan ahayn. meeshaas waxaa ku cad ahlucilmigu inay fasireen nusuustani, way fasireen ahlulcilmiga daahirkii nusuustay ku fasireen, jahmiyaduna wixii ahlulcilmigu ay ku fasireen waxaan ahayn bay ku fasireen. hadalkaasi wadaadka markuu akrinayay wuxuu ku fasiray tafsiirkii jahmiyadu unbuu fasiray, laakiin ahlucilmiga tafsiirkooda kama hadal. marka ahlulcilmiga uu sheegayana alimaamu tirmidi dabcan waa a'imadii salafka, taana waxay caddaynaysaa a'imadii salafka nusuusta sifaatka inay fasiri jireen, laakiin waxay fasiri jireen tafsiir ka duwan tafsiirka jahmiyada, muctasilada, ashaacirada waman naxaa naxwahum, iyo ciddii ayaga maaragta dariiqooda iyo wadadooda qaaday ee martay. waqfada afaraad oo aan dul istaagayna waxay tahay nimanka la yihahda jahmiyada iyo muctasilada isku dhinac ah iyo ashaacirada, sifaatka ilaahi subxaana wa tacaala sida loola tacaamulaya ma ku kala duwanaayeen. waxaan ognahay ashaacirada iyo maaturidiyada iyo qolooyinkaasi kulaabiyada sifaatka qaar ka mid a inay sugayaan, ay leeyihin waa sugaynaa. qaabkay u sugayaanba meelaha qaar ha ku khilaafsanaadaan, ahlu sunnihii salafka haba ku khilaafsanaadaan, laakiin sifaatka agarkooda ma sugayaane way leexiyaan. jahmiyada iyo muctasilada oo dhinac ah iyo ashaacirada, wadaadku wuxuu isku dayay inuu in badan kala duwo. maqطaci uu nusuulka uga hadlayana waa ku sheegay, kan kalena wuu kusoo qaatay. oo waxaan soo sheegnay hadalka imaamu tirmidi fa ankarat iljahmiya markuu marayay wuxuu yidhaahday
qofkii nusuusta sifaatka suga jahminimo waa ka badbaaday. taa macnaheedu waxa waaye marba hadduu nusuusta sifaatka sugo habe ta'wiiliyey sida ashaaciradu u ta'wiiliyaane jahmi ma aha. jahmiyada ma inkiri jireen gebi ahaanba nusuusta sifaatka. warkaas in loo tiiriyo dulmi way inkiri jireen waxay inkiri karaan oo maalan axaadiiثu الaaxaad oo kale laa yustadilu fi اlcaqaa'id daliilka istiraadaan xoogaa meel laga bushiya loo heli karaa waa bushin jireen. laakiin haddii nusuustu ay tahay sida aayaad qur'aan ah ama axaadiis sugan mutawaatiro ah meelay ka maraan ay waayaan ma inkiri jireen way ta'wiili jireen. ashaaciradana sidaas oo kale ayaguna u ta'wiiliyaan. waxay ku kala duwan yihiin jaanibkaasi labada qolo ma jirto. bal ashaacirada mutaakhiriinta ah dhanka sifaatka markii la joogo ayaga iyo jahmiyadu waxba kuma kala duwana ta'wiilka sifaatka ilaahi subxaanahu wa tacaala. waxaa tusinaya nimanka jahmiyada inay nusuusta sugayeen, qaar ka mida nusuusta sifaatka inay sugayeen laakiin ay ta'wiilinayeen. waxaa tusinaya hadalka alimaamu tirmidi raximahullah ee wadaadku akhriyey fata'awalat iljahmiya. jahmiyadu way ta'wiiliyeen buu aayaadkan jahmiyadu way ta'wiiliyeen. fafasaruuha calaa gayri maa fasara ahlulcilmi. ahlulcilmiga waxay ku fasireen waxaan ahayn ay ku fasireen. macnaheedu waxa waa nusuustii ma wada inkirin, way sugeen laakiin way ta'wiiliyeen. ashaaciradana nusuustii way sugeen in badan laakiin ayaguna way ta'wiiliyeen. ta'wiilka ay ashaaciradu ta'wiiliyeen iyo midka jahmiyadu ta'wiiliyeen way iswaafaqsan yihiin. oo jahmiyada sida uu noo sheegay alimaamu tirmidi raximahullah iyo sida uu sheegay asaabuni hadalkiisa aan ka akrinay markii gacmaha ilaahay laga hadlayo subxaana wa tacaala waxay leeyihin ma laba nicmaa laga wadaa iyo laba awoodaa laga wadaa. jahmiyadu sidaasay yidhaahdeen, ashaaciraduna ayagay ku raaceen. jahmiyadu inaysan nusuusta wada inkiri jirin ee waxay inkiri waayaan ay ta'wiili jireen waxaa caddaynaya ninka la yidhaha bishir marisi oo kibaartooda ka mid ahaa ayaa waxaa u tegay koox ka mid ah atbaacdii jahmiyada iyo atbaacdiisii saaxiibadii. waxay yidhaahdeen mararka qaar waxaana lagu soo aroorinayaa bay yidhahdeen axaadiid asaaniiddooda aada u wanaagsantah oo aanan inkiri karin, maxaan sameynaa? su-aashaasay weydiiyeen. markaasuu yihi laa taruduuhu ha radina axaadiistaas, ha inkirina fataftadixuu oo aada ceebowdaan ood fadeexowdaan markaa. walaakin khaalituuhum bita'wiil, laakiin ku qalda buu yihi ta'wiil. markaad nusuustaas inkiri weysaan ilaa nusuus saxiixa ah axaadiisteedu sugan tahay asaaniiddeedu jiyaad tahay markay tahay haddaad inkirtaan waa fadeexoobeysaan. maxaa sameynayaan marka? khaalituuhum bita'wiil. hadalkaas wuxuu ku tusinayaa jahmiyadu laftirkoodu inay dariiqaas ta'wiilka marayeen. kalaamka imaamu tirmidina waana tusinayeen. alashaacira waljahmiya labaduba waxay qariyaan oo isku dayaan inay qariyaan waxa ay aaminsan yihiin. kama qaala ibnu qudaama fi kitaabihi xikaayat lmunaadara fi lqur'aan safxada 35 wuxuu yidhi walaa naclamu min ahli lbidaci طaa'ifatan yaktumuuna maqaalatahum walaa yatajaasaruuna calaa idhaariha ila aljahmiya walashcariya. ma garanayna buu yihi daa'ifo ahlubidaca ka mida oo maqaaladooda qarisa oo aan ku dhiiranayn inay muujiyaan ilaa jahmiyada iyo ashaacirada mooyaane. marka labaduba waxay isku dayaan waxa ay aaminsan yihiin inay bulshada ka qariyaan. waa kan dhahaya bishir almarisi khaalituuhum bita'wiil. war ta'wiilku qalda, toos ha u inkirina waa fadeexoobaysaane. inay isqariyaan bay labaduba marka isku dayaan. waqfada u dambeysa walaalayaal waxay tahay oo aan kusoo gabagabeynayo waqfada shanaad ah waa nasiixa. walaalkeen sheekh cumar iyo cid alle ciddii ku mabda ah ee ku caqiide ah waxaan ugu naseexaynayaa wixii ku tacalluqa ilaahay subxaanahu wa tacaala sifaadkiisu wax sahlan ma ah. dhexdabaaladka ay dhex dabaalanayaan bigayri cilmin walaa macrifa iyo qaabka ay uga hadlayaan runtii oo aan tathabud lahayn oo aan sugnayn ilaahay subxaanahu wa tacaala ha uga baqaan. inaad maanta daa'ifo u gargaarto aad ka tirsan tahay ama koox aad isku fikir tihiin aakhiro waxba kuu tari mayso. qofka mu'minkaana xaqa ka maqan waxaa la rabaa xaqa inay raadiyaan. waxaan ugu naseexaynayaa xaqa in la raadiyo oo aan lagu dheganaanin hebelaa yiri hebelaa yiri waa kusoo barbaaray waa kusoo koray ma ahee diinta ilaahay waa itibaac. weliba khaasatan wadaadku wuxuu akhriyaa kutubtii axaadiidta
ee iska lahaayeen a'immada sunnada oo ka mid yahay imaamu tirmidi oo ka mid yahay imaamu al-bukhari iyo qayrkoodba muslim wa ghayruhum a'immadaas oo ku caan baxay dhammaantood inay nusuusta sifaatka ilaahay subxaanahu wa tacaala sugaan calaa daahiriha ay ku sugaan sidii jahmiyada iyo muctasilada iyo ashaacirada iyo dadka la noocana sifaatka ilaahay subxaanahu wa tacaala aysan ogoleen in la leexiyo taasina waxay keentay maadaama a'immadaasi a'immo sunno ay yihiin wadaadku markuu akhrinayo kitaabadaasi in a'immadii sunnada iyo asigaba isfahmi la yihiin oo kitaabkiina uu akhrinayo waxa mu'alifku ama imaamku sheegaya wax ka duwanna uu ku fasiraya hadalkiisa sidii aan tusaalooyinkii hore ku soo marnay waxaa marka naftayda iyo midooda waan u dardaarmayaa ilaahay ha laga boqo subxaanahu wa tacaala war xaqa hala raadiyo xaqa hala raadiyo hal il keliya yaan wax lagu fiirinin il qalloocda keliya ama il jiran haddaad wax ku fiiriso xaqa laguma arko laba indhoodoo caafimaad qabta wax ku fiiriya nusuusta iyo sifaatka ilaahay subxaanahu wa tacaala salafku say ula tacaamuli jireen si fiican u baara caqiidadii salafka min asaxaabati wataabiciina waman bacdahum wadadaasi ha la maro ama ta'wiilaadka la samaynayo oo uu ka gilgishay alimaamu axmed ibnu xambal markuu maqlay waxay tusinaysaa gilgilashadaas iyo argagaxa uu ka muujiyey yacni qalbigiisa sidii ilaahay ugu wen yahay subxaanahu wa tacaala iyo oo khatarta ay leedahay sifaatka ilaahay subxaanahu wa tacaala oo la dhex dabaasho biduuni burhaanin walaa xuja intaasaan in sha allahu tacaala kusoo gebagabaynayaa wabillahi towfiiq wsala allahu calaa nabiyina muxamed